gabagabeeyey khudbadiisa muxuu culayska ku saaray qodobadu kaga hadlay maxaa kamid ka taaban karnaa walaal horta ujeedada madaxweynaha khudbadiisa iyo ololaha uu ku qabtay magaalada El Paso wuxuu lahaa laba ajende arrinta koowaad oo ujeedadiisa ahayd waxay ahayd in uu derbigaas lacag ugu raadiyo oo xisbiga dimuqraadiga diidmada ay diidan yihiin oo shacabka ka dhaadhiciyo inay khalad tahay wuxuu tusaale usoo qaadanayay tusaale ahaan derbi laga dhisay El Paso sanadkii 2007 ilaa 2010 inuu aada u yareeyo dembigii magaaladaas ka jiray iyo dadkii soo galootiga ahaa ee dhibaatooyinka ka geysanayay inkastoo dadka sida madax banaan arrimaha ofiriga ay yidhaahdeen arrintaas waxba kama jiraan arrinta labaad waxay ahayd oo muhiimka ah oo madaxweynuhu meesha u tegay in uu sameeyo lacag doorashada 2020 uu u aruuriyo oo uu bilaabo campaignkaas ama ololahaas uu bartaas ka bilaabo caawa marka khudbadiisa qaybta ugu weyn waxay ku saabsanayd inuu wuxuu soo qabtay 2 sano lasoo dhaafayna ka sheekeeyo waxa uu maagan yahay iyo sida uu tartami doonana uu sii cabiro oo uu sii tilmaamo waan gartay Jibriil waxa inta badan aadna diiradda loogu hayay isagana wax weyn xaqiisa ka ahaa oo in badan ku soo celcelinayay dabcan la filayay markuu magaalada soo baxan ku qabanayay waa derbiga muxuu ka yiraahdeen gaar soo qaadana derbiga oo dabcan muran ka taagan yahay xisbiga dimuqraadiga iyo waliba aqalkii Congress-ka iyo sanadka xubnaha ku jirana ay si weyn isugu maandhaafsan yihiin arrinta derbiga wuxuu tilmaamay in derbigu uu yahay wax amniga sugaya oo dadka dalka soo galaya oo dadka ama dhibanayaasha soo gelinaya ama dadka dembiga galay oo kusoo noqonaya soo gelitaankaas inuu derbigu xakameynayo haatan wuxuu sheegay meelaha laga soo galo baraha xuduudda laga soo gudbo inaanay kasoo gudbin dadkaasi inta dhinac uga leexdaan jidka iska soo galaan Mareykanka ay sida ku dhex joogaan haddaan arrintaas wax laga qabana dalka amnigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa iyo shaqooyinkiisa iyo mushaaraadkiisa wixii oo dhan ay hoos u dhacayaan oo runtii dhibaato badan ay ka dhalanayso xakameyn la-aantaas dadka xuduudda soo galaya derbigaasna uu muhiim u yahay xakameyntaas way dabcan dhinaca kale dhinaca dhaqaalaha haddaynu ka eegno kale iyo waliba shaqooyinka oo kale oo dabcan muddooyinkii ugu dambeysayna xukuumadda madaxweyne Donald Trump ay aada uga hadlayeen dabcan halkan gobolkan oo kale hadda uu tagay saliidda iyo shidaalkana qani ku ah dhinaca shaqada oo aada iyadana isha lagu hayay muxuu ka yidhi madaxweynuhu ma ka hadlay runtii madaxweynuhu